taliyaha jabhadda la magacbaxday dulmidiid ee fadhigeedu yahay magaalada Qardho ee maamul goboleedka Puntland Siciid Cawli Jaamac Caare ayaa ka hadlay xaaladda degdega ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii la soo dhaafay ku soo rogay degmooyinka Ceerigaabo Garadag iyo sidoo kale Ceelaf Weyn waxaana uu digniin adag u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo sheegay General Caare in la doonayo in la wareego talada degmada Ceerigaabo waa sida uu hadalka u dhigay waa kan General Caare oo arintaasi khadka telefoonka igaga warbixinaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigu General Siciid Cawli Jaamac taliyaha ciidamada dulmidiidka waxa weeye lagama dulqaadan karo gobol aan waxba ka dhicin iyo degmooyin aan waxba ka dhicin in lagu soo rogo xukun military nimanka meesha lagu laayay sharci ahaan waxa weeye gobolka Sool ayaa laga xukumaa goobihii u baahnaa in lagu soo rogo xaalad degdeg maaha gobolka Sanaag iyo degmooyinka lagu soo rogay hadii la yiraahdo xaaladda waa laga dhigay doona shacabkana waxaan farayaa in laga kaco wuxuu doonayaa in uu baabi'iyo deegaanka iyo golihii deegaanka wuxuu doonayaa in military xukuumad goob kasta iyo degmooyin kasta iyo Ceergaabo si uu ugu faafo buuraha oo dahabka u gurto hubka ka dhigo dhammaan dulmidiidka aqoonyahanka cuqaasha salaadiinta dhulka gobolka waxaan farayaa in loo diyaar garoobo dagaal maadaama uu soo degtay dagaalkii Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin oo ka dambeeyay qorshahanba hadii la yiraahdo nimankaas saraakiisha markii ay sakiyeen Ceelaf Weyn baa la keenay sababta dib loogu celiyay lama garanayo ee siddeenta loogu dhigay waa dambi cad oo la galay eelka fiidhigad wargeetoy weeye sidaasaa la doonayaa in dadka loo mariyo loo laayo shacabkuna wax eedo uu leeyahay ma jirto dhammaan ummadda reer Sanaag waxaan leeyahay war iska kiciyo dulliga iyo dulmiga isma xukumi weydaan awalba waxba idma siin jirin ilaahay intaa ka digdaan waxaan iska kacaya annaguna diyaar baanu idin lahay haddii Allah ugu doolegolaado waana idinku dhownahay haddii Allah ugu doolegolaado. General waxa saaka magaalada Ceerigaabo la isla dhexmarayay inaad soo ruqaansatay oo aad timid deegaanada u dhow magaalada Ceerigaabo arintaasi maxaa ka jira bal nooga warbixi. Insha Allah awal bahadaan u joognay hadeer waa ku dhownahay arrintan kama dulqaadan doono haddii Allah ugu doolegolaado waxa loo diyaar garoobay isaga bilaabay waa waxaan hore u sheegay ومحمد دولة من هذا وقدر السنين إن شاء الله يسكن هذا المليون أكبر سلامة. ورسم كافي عبد الرشيد هذا مقبهيها عالمي الصومال يستيفي عرقابه.